Barcelona ayaa wajihi doonta tijaabadii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan marka ay booqdaan garoonka Allianz Arena ciyaar ka tirsan tartanka UEFA Champions League. Kooxda Barcelona ayaa 3-1 kaga badisay kooxda Victoria kulankii furitaanka tartanka Champions League halka Bayern 2-0 ay uga badisay kooxda Inter Milan. kadib markii ay ku guuldareysteen in ay ka gudbaan wareegga guruubyada tartanka Champions League xilli ciyaareedkii hore, wiilasha Xavi Hernandez ayaa doonaya in ay arintaasi mar kale aysan dhicin. Haddaba warbixintan waxaan ku soo gudbin doonaa sababaha Barcelona ay uga badin karto kooxda Bayern kulanka Champions League. doorka Robert Lewandowski. Markii Robert Lewandowski 2 jeer uu ku garaacay Barcelona wareegga guruubyada tartanka Champions League, natiijo 3-0 waxaana weerarka hogaaminayay Robert Lewandowski, waxaana uu 2 gool ka dhaliyay kulankii ugu horeeyay ee ay Bayern 3-0 kaga badisay kooxda Barcelona xilli ciyaareedkii hore. laakiin xaalka ayaa isbedelay haatan iyadoo Robert Lewandowski uu wareegay dhanka kooxda Barcelona. waa ciyaaryahanka ugu qaab ciyaareedka fiican ee Barcelona haatan, isagoo dhaliyay 9 gool waxaana uu caawiyay 2 gool 6 kulan oo uu saftay dhammaan tartamada dhan kooxda Barcelona. Lewandowski ayaa saxiix weyn u ahaa Barcelona, waxaana durba la dareemay joogitaankiisa weerarka kooxda Barcelona, waxaana uu saameyn aad u weyn ku yeeshay weerarka kooxda Barcelona. Barcelona iyo qaab ciyaareedka ay ku bilowday xilli ciyaareedkan tan ilaa markii ay barbardhac gool la'aan ay la galeen kooxda Rayo Vallecano kulankii furitaanka ee La Liga. xilli ciyaareedkan Barcelona ayaa badisay dhammaan 5 kulan ee ciyaartay, kuwaasi oo dhammaantood ay ahaayeen guulo weyn oo kooxda ay gaartay, waxayna 4-1 ay kaga badisay kooxda Real Sociedad. Valladolid 4-0 ay kaga badiyeen Sevilla, 3-0 Victoria 5-1 iyo Cadiz oo ay uga badiyeen kooxda Barcelona 4-0. kooxda Barcelona ayaa sidoo kale xoojisay daafaceeda iyagoo 4 ka mid ah 6 kulan ee ugu dambeeyay ciyaartay shabaqeeda ay ilaashatay horyaalka La Liga dalka Spain. 3 kooxda Bayern oo aan ku jirin qaab ciyaareed fiican. kooxda Bayern ayaa si gaabis ah ku bilowday xilli ciyaareedkan iyagoo dhibco lumiyay 6 kulan ee ciyaareen horyaalka Bundesliga, iyagoo barbardhac galay 3 kulan ee ugu dambeeyay ay ciyaareen horyaalka. waxaa xusid mudan in kaliya ay badiyeen 2 ka mid ah 5 kulan ee ugu dambeeyay ay ciyaareen dhammaan tartamada dhan kadib markii ay 2-0 ay kaga badiyeen Inter Milan toddobaadkii hore ka hor inta aanay barbardhac la galin kooxda Stuttgart. 4 Barcelona oo haysata dooqyo keedka oo ciyaarta wax kaga bedeli karto. Bayern Munich waxaa ka maqnaan doona Kingsley Coman kulanka Barcelona. dhanka kooxda Catalans waxay awood buuxda u leedahay kulankan, waxayna haystaan dhammaan kooxdeeda buuxa, waxayna keedka ay ku haystaan xidiga muhiim ah oo tayo leh, kuwaasi oo ciyaarta wax ka bedeli kara daqiiqad kasta oo ciyaarta lagu bedelo ciyaartoyda garoonka ugu jira kooxda Barcelona. Robert Lewandowski, Ousmane Dembele iyo Rafinha ayaa la filayaa in ay weerarka hogaamiyaan, laakiin waxaa keedka fadhin doona xidigaha ay ka mid yihiin Ansu Fati, Memphis Depay iyo Ferran Torres. dhammaantood waxay awoodaan in ay go'aamiyaan kulanka marka ay bedelaad ay ku soo galaan. 5 rikoorka Xavi Hernandez ee kulamada weyn. Xavi Hernandez ayaa rikoor amaana ku leh kulamada heerarka sare tan ilaa markii loo magacaabay kooxda Barcelona intii uu macalinka ahaa qaybtii labaad ee xilli ciyaareedkii hore. Bulgarana waxay 4-0 ay ku garaacday kooxda Real Madrid. Atletico Madrid ayay 4-2 ku garaaceen. Napoli ayaa 5-3 ay ku garaaceen. Sevilla ayay waxay ku garaaceen 1-0. xilli ciyaareedkan Barcelona ayaa 3-0 ku garaacday kooxda Sevilla, waxaana sidoo kale u suurtagashay in ay kooxda Manchester City ay ku qabato barbardhac 3-3 inkastoo uu ahaa kulan saaxiibtinimo. Xavi waxa uu muuqdaa inuu awood u leeyahay in uu ku dhiirigeliyo ciyaartoydiisa in ay soo bandhigaan qaab ciyaareed fiican marka ay la ciyaarayaan kooxaha weyn.